إنتاج الشبل تقدم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام البررة، ثم أما بعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بهذه الكلمة في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, marka u horeysa iyo mar walba ilaahay baa mahad iska leh. allah subxaanahu wa tacaala waxaynu ku dhaqannahay oo ku noolnahay waa nicmadiisa. ilaahay nicmadiisaynu ku dhaqannahay. wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina, wamaa bikum min nicmatin famin allah, wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha. waqaala calayhi salaatu wassalaam: abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant. marka waxaynu ku dhaqannahay dal iyo dibad, miyi iyo magaalo, meelaynu joognaba waa ilaahay nicmadiisa. sidaa awgeed waxaa inaku waajiba mar walba in qalbigeenna iyo carabkeenna aanay ka bixin mahadnaqa ilaahay. alxamdu lilaah ereygaas inuu carabkeenna ku bato way fiican tahay. ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyullaahi nuux: innahu kaana cabdan shakuura. wuxuu ahaa addoon mahadnaq badan baa ilaahay yidhi. marka in carabkeenna iyo lisaankeenna iyo qalbigeenna hadiya gooraa leh mahadnaqa ilaahay inaynu badinno. alxamdu lilaah, alxamdu lilaah, oo aynan isku hadlayn aqoonteenna, awooddeenna, maalkeenna, caafimaadkeenna iyo nolosheenna. inaynan isku hadlayn ee qofku ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaqdhaqaaqayo oo ku nool yahay nicmadiisa oo aanu isku filnayn. maxaad u malaynaysaa meesha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu galabtii iyo aroortii odhan jiray: yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif aslix lii sha'nii kullah walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn. ilaahay buu u tawasulayaa biasmaahi alxusna. markaasuu wuxuu leeyahay raxmaddaada baan ilaah ku weydiisanayaa. iskuma filni, kaama maarmi karo. isha intii la isku qabto hal mar ilbiriqsi wax lagu cabiro waxa ugu yar weeyaan. kaa maarmi kari maayo ilaahayow, marna kaama maarmi karo. marka inaynaan walaalayaal isku hadlayn waxa aynu maxaanku idhaahdaa ilaahay ina siiyey oo aynu haysanno, laakiin ilaahay isku hadlayno. waxaan waa iska kaalmo, laakiin axadkii ku siiyey marka aad garatid oo qalbigaaga uu ku weynaado waxaa ka dhalanaya ilaahay inaad jeclaato. caafimaadkan xagguu ka yimi? maalkan xagguu ka yimi? aqoontani xaggay ka timi? waxaan oo dhan bal xagguu ka yimi? mid kasta dib u raac. min allah, min allah, min allah, min allah. waxay taasi keenaysaa ilaahay inaad jeclaato. ilaahay inaad jeclaato. maanta haddii qof 1,000 shilin ku siiyo, berina uu 1,000 shilin ku siiyo, markaa is aragtaan buu 1,000 shilin ku siiyo, haddii loo dadka Nairobi ay ugu jeceshay aw jaamac baan ugu jecelahay, oo maxaa ku jeclaatay? war caadiba maaha ninkaas. indhaha haddaad is saartaan lacag buu kuu dhiibayaa. dee waxaa ku jeclaatay wax uu ku siinaya soo maa. fa kayfa axadka leylan wa nahaaran nicmadiisu kugu socoto maxaad u malaynaysaa? leylan wa nahaaran wax kale iska daa, bal neefta aasanka ka qaadanayso oksijiinta bilaash baa ku qaadanaysaa.
dadku markay bukoodaan dhakhtarada la dhigo oxygen u baahdaan waa garanaysaan sida xaaladdu u adkaanayso waa dhaweyd oday baa kaadidu qabatay dabeetana dhakhtar baa la dhigay odaygii waxaa la yidhi borstite baa ku haya qanjidhkan qofku markuu 50 ba dhaafo wuu dareemaa inta badan qanjidhkaasi dabeetana waxaa la yidhi waa in qanjidhka lagaa saaraa lacag baa la bixiyey qanjidhkii baa laga saaray maalintii dambe dhakhtarada weydinka arkay oo aroortii markay cusbitalka soo galaan dadka jiifa bukaanka ayuu dhakhtarku kormeeraa qof waliba uu eegaa xaalkiisa xal sidee ahaa caynkan kadib wuxuu fadhiistaa qolkii uu fadhiisan jiray odaygii buu marka uu qalay buu ku soo beegmay marka iska waran buu ku yiri sidee tahay odaygii markaasuu ilma indhihiisa ka soo daadatay waa ooy dhakhtarku wuxuu adeer maxaa la ooyeysaa adoo tacbaansan oo kaar badani ku hayo ayaa lagu keenay waa lagu dadaalay operation fiican baa ilaahay naga ka dhigayo waa lagu guuleystay ma sha Allah si wacan baad imanka kaadidii kaaga imanaysaa leesh maxaad u ooyeysaa maqaalad cajiib ah buu ku jawaabay odayga wuxuu yiri maalintan dhashay oo dunida imi ilaa maalintii dhakhtarkan la keenay inta waa kaadinay bilaash baan ku kaadinay wax lacaga ilaahay igama qaadin hal maalin oo aan idin baahday oo kaadidii qabatay baa tiraahdeen intaas oo lacaga keena hal maalin baa idin baahdo kaadidii qabatay dhowr iyo 70 sano baan caadi bilaash lacag laan ku kaadinay maalinta ay kaadidu qabatay baa tiraahdeen intaas oo lacaga keena meeshu wax ka eegayso ma aragtay waxa aynu haysano ilaahay ina siiyay waa xusuusin ba iga tahay naftaydana waa u sheegaya idinkana waa idin xusuusinaya nicmadaas ilaahay ina siiyay fara badan qof waliba waxaad haysato cid badan oo aan haysan baa jirta marka inaan ilaahay u mahadnaqno waa xusuusinayna inta bacdigeed mawduuca waxaan u dooranay dhacdo weyn oo dhacday taariikhda islaamka oo dhacdadii u horeysay islaamka ahayd mid lamid oo dhacda xilligii xabiibku noolaa calayhi salaatu wasalaam dhacdadaasi nin saxaabiyay ka dhacday waxaynu markaa qiimeynaynaa inta inagu waa dambaabaynaa qofku waa dambaabi karaa isagoo sheekha isagoo mucallina isagoo masuula isagoo dhalinyaro ah isagoo waayeela waa dambaabaynaa habeen iyo maalin oo naf iyo shaytaan baa inagu xidhiidha waqtigan iminka la joogana dunuubtu waa iska badanta oo macaasidu waa badanta oo wixii ilaahay lagaga fogaanaya ba kolba soo kordhayo badanaya waa duni waalan oo suwixii waageedu bariyaba wax ka cajabiyo bad arki sida awgeed in dunuubta qofku marka ay ka dhacdo inuu soo noqdo dunuubtaasi ha noqoto mid waaweyn ama ha noqoto mid yar yar dambiyada ilaahay bani aadamka uu ka galo saddex dambi baa ugu weyn sida nusuusta shariicadu sheegtay dambiga koowaad ee ugu weyn waa maxay yaa ka jawaabay shirkiga ugu weyn afsax Allahu lisaanak maxaa ku xiga dilka naf xaq darro lagu dilo maxaa ku xiga zinada ku xigta في سورة الفرقان با إلهي كشيء والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق محاكو حقه ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما سدح ذا الدنبي إلهي لقال هو وين وقال لمو يدل حق دراءه يزنو بأقوين marka dambigan caaw ka sheekaynayno waa dambi nin guursaday ka dhacay nin xaasa ay dambigan ka dhacay oo zina ah shariicaduna meel adag bay dhigtay tusaale baan saxaabigan u soo qaadanay sida intuu dambi ugu dhacay ilaahay intuu ugu soo noqday iyo heerka abaalkiisa uu gaaray ee rasuulku ka sheekay sallallahu alayhi wasallam ninkaasi waa maa'iz ninka la yiraahdo saxaabiga ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah maa'iz waxa la yiraahdaa reer bani tamiimna waa lagu sheegaa inuu ahaa culimada kutubta taariikhda qorta reer aslamina waa lagu sheegaa aslami baase loo badan yahay inuu ahaa
rasuulka sallallahu alayhi wasallam reerkooda warqad buu u qoray oo ugu baaqayo inay islaamnimada iyo diinta soo galaan ilaahayna sabab uu uga dhigay oo way soo muslimeen wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhagax lagu dilo shariicada islaamka gudaheeda intuu guur xalaala soo maray zinaystay dabadeedna ayuu ahaa Maaciz ibn Malik sanadka dhacdadaasi dhacday tolo waa goorma taariikhyahanadu waqti go'an oo dabdi aad uma sheegaan laakiin waxa la sheegaa waxa jirtay qof dumar oo ka dambeysay oo la oran jiray imra'atul ghamidiyya nusuusta ku sheegtay gabadhaas waxa la yiraahdaa sanadkii sagaalaad ama sanadkii sagaalaad aakhirkiisii ama wax yar ka hor ayaa gabadha la rajmiyay iyaduna waa ka horeysay waa gabadhii rasuulka u timi sallallahu alayhi wa sallam iyadoo uur leh salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ay rasuulka ka codsatay in uu rajmiyo salawaatullaahi wasalaamu calayh waa ay tiri ma sidii aad Maaciz u celisay baa doonaysa anna inaad ii celiso oo dabeetana uu yiri balato uurka soo dhig dabeetana ay umushay oo ilmihii ay keentay oo rasuulka bal soo nuuji ilmaha oo dabeetana markuu naaskii jaqayo de laba jir meelaha u yahay ay keentay subaxii dambe jab kimis ah ama jabaati ah ay soo qaaday oo ay u dhiibtay oo rasuulka ilaahay aniga saaka wiiga maarmaayo waka halka ku ciyaarayo jabaatigiisa iska cunayo haday lay xadka layga oofiyo maanta ii baahan maayo ee xadka halayga oofiyo fatahirni ya rasuul allah itahir rasuulka ilaahay dabeetana marihii lagu adkeeyay dhagaxiisaas rajmiga ah loogu sameeyay intaasoo dunuuba inaga ina ka dhacaysa haddana waqtiga maanta aynu joogno dad badan oo ina ka mid yihi dunuubta ka dhacaysa waxba lama aha waaba waxa dhacday xajka ayaa la xajiyay umradii oo la tawaafayo kacbada ayaa niman Soomaaliyo wada socda waxay arkeen dadkan eeshiyaanku wadadeen ka qalbi jilicsan oo hin badan inta badan niman eeshiyaan oo kacbadii maradeedii haysto oo aad u ooyayo ilaahay toobad iyo istighfaar weydiisanay nimankii bay isweydiiyeen marka Soomaalida ahaa wada socday ma laba ma saddex nin bay ahaayeen qiyaastii bal nimanka iyahow bal siday u haystaan kacbada maradeeda oo ooyayaan oo ilaahay dambi dhaaf u weydiisanayaan eeg inaga maxaa ina helay wax dareenaba malihiina waa sidee kii la socday baa yiri war ma dambigay galeen baad ogtay adu maxaad gashay يعني waxay tusinaysaa xogaa qalbi adeegeena bay tusinaysaa qalbi adeegeena inta waa dambaabaynaa qofku inuu ogaado dambigu ilaa saxaabadii waa dhacay heerarkiisa kala duwan ilaa inta dunida la joogana uu dhacaya qof nooc kasto bulshada kamid ka dhici kara laakiin ha dhimaanin oo godka ha gelin adoo dambiila ah in alla u toobad keent kullu ibn aadam khata wa khayrul khata'ina التوابون إن آذنه دم وقفية لكن أنت قفتا وحا وخير بدن هو صن قشدة بدن مركا قبل سي أهيد من كان صحابي ماعز أيام بالقصدي سربا إنان يردح قاله سي أينو إن شاء الله تعالى سفي عن أدرينه يوحي بل أين أوران كرينه نبي قوم مساجد كدح فرديه عليه الصلاة والسلام saxaabadiisii bartankooda fadhiya ayuu u soo galay ninkan saxaabiga ah dabeetana saxaabadu ay rasuulka dhageysanayaan oo la hadlaayo xagga muuqaalka nin gaaban buu ahaa Maaciz markay taariikhda kutubta siirada ka waramayso wuxuu ahaa rajulun qasiir nin gaaban buu ahaa oo soo galay oo aan itaal weyneyn nin lixaad le ma ahayn in yaro gaaban oo xagga itaalka نسير بوها وصقله ماكو وصق رسولك ويمي صلوات الله وسلامه عليه ويسور تاجي أفر شرب رسولك كلا دون تؤجمي رسولك لا هيو زنيت فطهرني وازن يستيه الداهري وإنظيفي يعني الذنب وين أشرف الخلق هرتي سلقا قرنا صلوات الله وسلامه عليه ومساجد لحدي وتاجنيه يا رسول الله قد ظلمت نفسي
وزنيت فطهرني نفتي إذا وادلمي وازنيستي إطاهر رسولك إلهي زندي ودنب وين وعظيمة وجريمة وين وذنوب إنسانك قالوا عقوبات وين وأبار له وعذر له وبلايا له بكدعة وحب بعضنا إنسانك سهشني نبي قلنا صلوات الله والسلام عليه أمدي سآد بوجدك وعكم إذا حديثة صحيحة يا أمة محمد يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته حديث كبخاري مسلم صوصارين أمدي النبي محمدي إلهي بان قدارتي متشيرو أحد كغقير بدن إلهي سبحانه وتعالى سيدو أغقيروضو إن أدون كيسو زينيستو أما أدون تيسو زينيستو سيدو إلهي أغقيروضو سن بالعادي ما هب النبي يقول صلوات الله عليه إن بعادي ما سو أغقيروضو أدون نرجع كم إذا مسلمين تا أما قفدوا مرة مسلمات كم إذا زينيسته إلهي سيدو أغقيروضو وحلم إذا مجرى النبي يقول عليه الصلاة والسلام رسولك يسقو ساو قد جاي أي هذا ننكاس أرنتاسي كذا عادي ولا وزنيستي طاهر رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه يعني هو حويان زند ودم بأذك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وضد يقال إسرائيل ثاني وثاني هجورسو ثانية هجورسته ودم بوين أو الشرائع دي إلهي سودة شيء أو دن حرام لماذا زندو أي حرام تهي أي سكوا فقين هل شرعي هل كتاب إلهي سودة شيء كتبتي يرسوشي وصادري لو ما أرق أو ضع وكلا بايدي وسكوا فقين صحيح البخاري وحاكو سوغان قصياب له أياكو سوغان أو عمر بن ميمون ورين أيوه وحليه هاي رأيت في الجاهلية قردة والقصة أي وحان أركي حتى حيوان كسي الزنا ونعبهين وحان أركي جاهلية دي وحل كان رسولكو صابحين عليه الصلاة والسلام وحان أركي بولي عمر بن ميمون وحان أركي دانيرد كديك دانيرد بان أركي اجتمع عليها قردة دانير بدن اسقوي مادين قد زنت وزنيست دانير كقف يقانا بيرها iyo damiigi waa lagu garanayaa waa xayawaanka ugu qiirada badan xagga wuxuu kamid yahay tan nolosha la wadaagta wax yar haday ka maqnaato oo ama geed ama kayn ama meel ay xagga ka soo marto marka ugu horeysaba wuxuu shayga ugu horeeyo uu sameeyo uu ursanaya xubinka taranku ka ursanaya xagganu kala wareegaya marka aad buu ilaaliyaa daanyeerad baan arkay buu yiri daanyeera isugu yimaadeen farajamuha oo dhagax ay ku dilayaan ayaan arkay markaas wuxuu leeyahay ninkan saxaabiga ah farajamtuha macahum ana wala rajmiyay buu markaan fahmay inay daanyeer kale u dhuumatay waa u raaciyay buu aniguna ilaa nafta lagaga jaray waa garad Soomaa waxay tusinaysaa mas'aladan xitaa xayawaanka agtooda sida ay ku tahay bay tusinaysaa waa zinadu waa ceeb waa an aadux adduunkana waa ceeb iyo dulli aakhirana waa cadaab waxa garanaysan xadiiskii Bukhari iyo Muslim Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu wardaah rasuulka markii la guuraysiiyay ama la dheelmiyay waatu rasuulku sallallahu alayhi wasallam innahu atani al-laylata atiyani habeenkii xalay ahaa laba malag baa iihimi wa innahuma ibta'athani way kaxeeyeen labadii malag wa innahuma qala li intaliq waxay yiraahdeen soco wa inni intalaqtu aniguna waan socday macahuma anigoo la jira faatayna ala mithli tanur waxaanu soconaba waxaan nimi tinaar baan balka moofada lagu dubay roodhida tinaar dushii baan isa soo taagnay فإذا فيه لغط وأصوات وستنارك قديهيسا وحاكات بحي بوق يعض يقيلو أيا كسعط فاطلعنا فيه وقوران سنيو ساسانو إيكمي فإذا فيه رجال ونساء عرات مثل وحاكات كبو حد حديثة رقي دمر قاقاون بميشن كشكترا
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم حق هوسه هلع يضب باكا سو كعيا markaasa dabka iyo holacaasi say uga cararayaan isna uu dabada uga jiro bay afka ku soo dhawaanayaan tinaarka afkiisi bay ku soo dhawaanayaan فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا marka ay dabkaasi ku yimaado waa qaylinayaan abaad iyo qaylo markaasaan faqultu ma haula'i wa ma haykuwan qala fa innahum az-zunatu waz-zawani wa raggi iyo dumarkii dunida kala zinaysan jiray dumarkii raggii zinaysan jiray iyo dumarkii zinaysan jiray waa sidan xaraam bay maryaha isugu dhigteen Aisha markii aakhira rasuulku ka waramay iyo mowqifka Ilaahay hortiis dadku waxay soo istaagi doonaan iyagoo kabala iyagoo maryala iyagoo aan gudnayn iyagoo caynkana rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi Aisha marka waxay rasuulka Ilaahayow dadka inta tira leeg ee banaanka la isugu saaray qaaqaawan miyaanay rag iyo dumarku cawradoodu isu muuqanay Aisha arrinka waa ka adag yahay nabiga Alayhi salaatu wasalaam Aisha waa runteed dareenka qof walba cabiri kara way maanta maxaad moodaa iyagoo dhar sita dadkii loo kala taaglay taas waa baqaawanaan la sheegay oo arrinkeedu adag yahay dunidan maanta aynu joogno iyagoo raggiina marya xiran yahay dumarkiina marya xiran yahay ba hadana zinadii socotaa oo loo kala taaglayahay oo la isku qarsanaya marka zinadu heerkaas shariicadu gaarsiisay Maa'iz radiyallahu hadiska Bukhari wari Maa'iz radiyallahu ta'ala anhu wa nabiga majliska ugu yimid zanaytu fatahirni wa zinaystay tahiri nabigu waa eegay sallallahu alayhi wasallam wayhak irji' wastaghfiri Allah wa tub ilay warhooge war orado dib u noqo oo ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo Allah u toobad keen waa noqday dambigii uu galay ayaa hadana qalbigiisi gubaya mise waa kana hadana waa soo noqday ila nufuus bay ahaayeen ilaahay rumeeyay oo rabbi ku xiran oo aakhiro og oo dambigu ay galeen dareenkoodu iimaanka ku jira ayaa wax badan xanuujinaya oo shaytaanku qofka waa gafka iyo dambiga uu ku soo jiiraya laakiin innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun marka waa in waad gafaysaa laakiin markiiba inaad isqabata war maxaa kugu dhacay war balaayada ku qaaday waa maxay war seen noqotay war balaaya kugu dhacday waa ku sidee war Allah u soo noqo Allah u toobad keen aynka waa inaad tiraahdaa idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim marka hadii xuma dhaco waa in durtaba ilaahay loo soo noqdaa subhanahu wa ta'ala ninkii Maa'iz radiyallahu anhu waa soo noqday ya rasuul Allah tahirni wa mar labaad rasuulka ilaahayow idaahiri dambi baan galay iga nadiifi wayhaka irji' fastaghfir Allah wa tub ilayhi warhooge orado noqo war ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo toobad keen orad waa noqday way ishayn way hadana wixii ka dhacay buu dareemaya waa soo noqday tahirni ya rasuul Allah su'aasha markay isweydiinta la waxay tahay waa maxay qoomamada iyo shalaytanka inta la eg oo la fadhiisan laayay ee saxaabigan wada waa dareenka dambigan uu dareemayo inta uu la egyahay iyo tawbadan ilaahay inuu soo noqdo uu rabo tawbad saadiqa abu raba inuu soo noqdo oo nasuuxa ah oo ilaahay uu ku jeclaado subhanahu wa ta'ala mar saddexaad buu u yimid tahirni ya rasuul Allah rasuulka ilaahay oo tahiri waa dambaabe mar afraad buu hadana u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam markii afraad ba rasuulku marka su'aal weydiiyay wuxuu ku yiri su'aashii u horeysay fiima utahiruka maxaan ka daahiriya bal waxna aad ka cabanayso marba aad leedahay iga daahiri iyo kiiskan aad gashay muxuu yahay qaala min az-zina zina iga dhacday rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadii buu su'aal weydiiyay wuxuu yiri abihi jununun warninkani wax waali ah miyaad ku ogeydeen anu meer qabban ku ogaayay wax xanuuna miyuu jiraa oo la soo darsay markaas ay yiraahdeen nabiga sallallahu alayhi wasallam laysa bi annahu laysa bi junun wax waali ninkan ma hayso su'aal waad buu weydiiyay wuxuu yiri ashariba khamran tolo ma khamri buu soo cabayo xooga miyuu dawaqsan yahay
oo maxmiyaasi ka ah nin baa kacay raggii ka mid ah wuu ursaday in la baarko baxa qarmoon oo uraya way wuu ursaday bal in khamri soo cabay urtiisi laga dareemayo wax khamri ah iyo badaaba nin galay ma huwa ninka nadiifta ah markaas nabigu su'aal saddexaad ku celiyo wuxuu ku yiri azanayta warmiyaad sinaysate faqala na'am ha markaas rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam su'aal afraad weydiiyay la'allaka qabbalta war waxa dhici karta inaad dhunkatay baa dhici karta aw ghamasta ama inaad taataabatay aad tuujisay baa dhici karta aw nadarta ama inaad eegtay oo isha u jabisay baa dhici karta qaala laa yaa rasuul allah may rasuulka ilaahayo intaa midna maaha waa kasii fogtahay su'aal shanaad buu weydiiyey wuxuu ku yiri fahal tadri ma zina zinadu waxa ay tahay ma garanaysaa horta bal ii qeex zinadu waxay tahay bal ii sheeg nacam ataytu minha حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا حرام بان أقولتجي سيدا نينكو حاسكي سحلاشة أقولتجوكالي سؤال شو مكاسو عيري حبن كيجا ترنكا إيه حبن كذا ترنكا أيا سيدا ودانتا عيل كله يقوليدو وقول عاي يعني وقيحة يا وحو الربائن أرنتو أي كدع عدينو عدايو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركو انت أشياء ودوا قرشو ماشي قدام بيسيبو قرطي أيا رسولك صلوات الله وسلامه عليه طهرني أوليه هي أيا رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم حدك وين لقوا فيها قد هالله قضى قد بالله قضي إلى محنكو إلى هذا مسكيهسة أما هالك سمها كي رسل ريحوغا بالله قضي هل الرجمي يا رسولك صلوات الله وسلامه عليه دغخ لغو رجمي ولا الرجمي ماعس دغخي با لغو بلابay shariicadu waxay uga gol leedahay qofka guur xalaal soo mara iyo qofka aan soo guursanay zinaysta way kala duwan yihiin qofka zinaystay aan guur xalaal soo marin isagu waxa kan waa markii ugu horeysay waxba kama yaqaan sida uga shariicadu in boqol shaabuug oo dhangadood lagu dhufto xabsina la dhigo ama la masaafuriyo ayaa shariicadu ay sugtay haddii ninku guur xalaal soo maro oo macaanka uu guur ku leeyahay rasuulku ku sheegay shahru asal bisha hore ee guurku inay tahay bil uu rasuulku ku mathalay malabka oo kale macaankii xalaasha iyo guurka ee uu soo maray ee jirkiisa tin iyo cirib wada gaaray hadduu ka dambaysiiyey macaan kale oo xaaraan ah waa in xanuun looga dambaysiiyaa tin iyo cirib wada xanuujiya وين لو قدم بيسيا وانا آيات قرآن أي أهيد قراءة ذي لنسخي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة آيات قرآن أهيد آخر سكيدي ولا نسخ لكن حكم كيدي ويالا ما أنت قلوا أي واحد ترى هذا مكوا علمانية ده ما دتك الدين تكسر كذا حير هذان مركي هالليان دتكو هدي وحده حذان وقعمها اللي وذا جوي هدي إلهي إدمايو أي زينيستان وقار شابوق للدعو يقول لكرباشو وقار رجح لجدله ومضوا ولا ضمين يا وحلقة دقيقة ضد وذا بيشن واحد أختار جيفاء واحد انتي واحد عم جوان يا وش قينا يلي جوابت له علني واحد تاي ضدك أردني مزونات به مية زينيستان ومريا الله واحد زينيستان ضدك أردني متوجه وهمايا مريا الله بوا واحد توجته دي متقع عن لا شو ولا جود عرّ لا باش dadka oo dhan ee xaafadaha iyo xaasaska soo wada maray miyay wada zinaystaan kuwa aan waligood guursan miyay wada zinaystaan waa maya waa mid iyo laba weey sida awgeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ninkii saxaabiga xanuunkii dhagaxii ku dhacay jirkiisa ayuu carragod ka soo booday dabeetana waa la baaciyay nin kale oo ka hor yimidna dhagaxii baa lagu dhuftay adigu ninkii nafti baa meeshii kaga baxday saxaabadu ويسويدين دعدة ماشى كدعدي يسيد وحود عين أيا صحابة إري بحنتو دي ويسير ويدين مد عنانا يا
iyo mid ammaanaya ayaa hadalkooda marka axaadiista aad fiiriso ayuu noqnoqonayaa. qaar waxay yidhaahdeen halaka maacis wa axaatat bihi khati'atuh, maacis waa dhintay, wixii khalad ee ahaa ee u galayna waa haleeleen oo waa koobay. qaar waxay yidhaahdeen towbad uu maanta toobad keenay maacis toobad la midaba maba ay jirto. nebigu sal allahu alayh wasalam wuu soo baxay, markaasuu faallo yaroo kooban ka bixiyey maacis ibnu maalik iyo rajmintii la rajmiyey. wuxuu nebigu yuri sal allahu alayh wasalam istakfiruu limaacis ibni maalik, maacis ibnu maalik ilaahay dembi dhaaf u weydiiya. faqaaluu gafara allahu limaacis ibni maalik, markaase waxay yidhaahdeen maacis ibnu maalik alla ha u dembi dhaafo. rasuulku markaasuu wuxuu yidhi laqad taaba maacizun tawbatan low qusimat bayna ummatin lawasicathum. ninka maaciza wallaahi wuxuu toobad keenay towbad haddii ummad dhan oo ilaahay abuurtay oo arla degan toobadiisaa qof qof loogu qaybin lahaa ku filnaan lahayd buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. towbadiisaa ku filnaan lahayd ummad dhan, sida ummadda soomaaliyeed oo kale, sida ummaddan kiiniya oo kale, ummad dhan oo ilaahay abuurtay ama kaba badan dee haddii loo qaybiyo qof walba waa ku filnaan lahayd. towbadda marka uu qofku toobad keeno uu ilaahay u soo noqdo, alle wuu kugu jeclaanayaa, duu kaa toobad aqbalayaa, waxaadan filayn oo aad u qiimo badanna waa ku siinayaa. waa garanaysaan xadiidkii uu towbadda rasuulku masalka yaab kale ka bixiyey. nin sadcaalah oo dhul bahgooyo ah oo aan baadiya biyo lahayn oo geed la harsada lahayn, nin socda oo neef geela wata awrkiisii, sahaydii biyihii u saaran yihiin, inuu soo maray oo dabeetana awrkii u saarnaa raashinkiisii biyihiisii wixii uu ka fakaday oo ka baxsaday, intuu raadiyey ka quustay, dabeetana geed meesha ku yaalla intuu iska yimi hoos seexday oo uu yidhi kollay socod iyo caga meel ku gaadhi mayside geedkaas naftu ha kaaga baxda hoostiisa adigoo jiifa. waxoogaa ka bacdi markuu indhaha isku qabtay, mise waa neefkii ka baxsadayoo dul taaganoo hoggaankiisii iyo xadhiggiisii uu laadlaado. farxad daraaddeed intuu booday ayuu hoggaankii qabsaday. markaasuu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka. akhطa'a min shiddati alfarax buu nebigu yidhi, ilaahu adna addoonkaygii baa tahay, anna rabbigaa baanahay. muxuu doonaya inuu dhaho ilaahu adna rabbigay baa tahay, anna addoonkaagii, waa kugu mahad haddaad ii soo celisay. yacnii farxaddii ka badatay awgeed ayaa erayadii ka soo baxayay xitaa ayuu maaragtay hadallo waaweynoo khatara ku hadlay. toobadda ilaahay saas ugu farxaya. markaad wax shay macsiyo ah ka toobad keentidna ogow wax ka fiican baa ilaahay kuugu bedelaya, wax ka wanaagsan baa ilaahay kuugu bedelaya. rasuulku wuxuu yidhi, weli saxaabigii buu kasii sheekaynaya, laqad ra'aytuhu yatakhadkhadu fii anhaari iljanna. wallee waxaan arkay isagoo webiyadii jannada sidaa ugu gadgadoomayaan arkay. jannada intii webiya ku taallay isagoo kolba mid kan caano ka cab, kan biyo ka cab, kan malab ka cab, kolba mid isagoo u wareegaya ayaan arkay. riwaayad kale waxay tidhaa waladii nafsu muxammadin, allaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye, innahu layanghamisu fii anhaari iljanna. wuxuu dhex mukhuuranayaa oo dhex dabaalanayaa ee ku dhex jiraa webiyadii jannada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa qiimaha uu toobadkeenku leeyahay, oo dunuubta haddaynu ka toobad keenno jannaynu helaynaa weeye micnaha. ilahay intuu toobadeenna aqbalo ayuu janno ina siinaya. maacis noqnoqoshadiisii dembigii uu galay ee qalbigiisa gubayay ee daahiri uu lahaa wakhti kooban dabadeed heerkaasa ilaahay gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala. ilaahay addoomkiisa cid uga naxariis badan markuu u toobad keeno ma jirto. dembi kasta oo aad gasho gaalnimoba ha noqote ilaahay waa kaa toobad aqbalaya subxaanahu. wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih. ilaahay axadka addoomihiisa ka toobad aqbalo wey. sidaa awgeed intaa waynu dembaabaynaa, waa gafaynaa, waa khaldamaynaa. gooraynu dhimanaynana
ما أوجين هذا إمين كوحين تكن المغرب وحين ربنا إنه هدي الله إدمه عشيه تكن جوردو قف إن كم إذا هو بمتشرا يسوقون نول إلو علاء عشة جارة يو تكني أنا جاي إذن الله ما هو بو إذن كأي مغلي أنا ما هو بتاع جيرد أنت سئنو شرتا كبت عاد قشنت هاي السون كيدو فرت هذه السول كسارية جيرد وإذن كدو ذي بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام أضو الصعودات لمن كرتا أضو فرديات لمن كرتا أضو تاجن بعد لمن كرتا أضو تشيفات لمن كرتا مهمة وحوية ودمن وجيري ولا مهوران لكن أديكو إلهي كحريرسن وودديسي كتوسن جيريدو حكوتي ماتو كتلا قالنا دمن يسيد ولي وقت كان ما أنت اللي جوجو وآخر الزمن موت الفجع وبنيه جيريدا لما فلانكا إلهي النبي وكم ينقلي تشري النبي إلهي كم ينقلي إلهي موت الفجع بان كم ينقلي أورنجي ويبضنتها ما أنت سيدا أوجد بعد ما شادوا بدنتها وموت الفجأ وبدنيه قف ولو بأديكوا بالواحد اسكت ضيدا إنا توسناتد إلهي أديك حرير كإدين دحية بالهجاج هداد هجاجسو والله هداد هجاجسو أديك إيا إلهي حرير كإدين دحية أديك إيا حاس كاجا حرير كإدين دحية وفي عنانية أديك إيا عرورت هذا حرير كإدين دحية وفي عنانية أديك إيا درسك أديك إيا والدك أديك إيا قرابة أديك إيا برشاد كل حنوش وفي عنانية وأي مال صار حرك وحيرن يا أذك وحورن شري فضيل بن عياض إذا عصيت الله معصية فأعرف ذلك خلق حماري ودابتي وزوجتي مركان إلهي كعاصيه مركيبة وحان كجرتا دقن كحاس كيجا دمير كأن راعو قاديد كإيه يعد إيه شقيسي خادم كإيه إسلانتيو وهذا العلين يسوع يقول يا رمضان حدا يسكو كيسو تاجي سان أركا دمير كي بارجع هاي قاديد كإيه هايو بقلينا يو أنا قلين إن بقاديد صدو أيان أركا خادم كيو يقول دقا أذك أيان أركا مركاسان نقضايو إلهي أهيدا مركاسا إلهي وحي إيه حاجاتيا سيدا أوجد نينكا أينو كشيء كاين الفضيل بن عياض نوحوا أها مركي هراء برعة وخمر قعدة وحنون كائن وكشيء كاين نعاوة كشقله وضد كشتك كم روايين وهدي قرح ضد عضه ديجان كأوتشوجو وحسعون شري ما شران وحسعون شري ما شران لقبقه وضد كلبي بوها هبين كي دمبه أيو قفض مروءا وناك سنين بولا بالله إن حمانا يدحمرته دبيتنا goordon boo dadku kala seexday saqbarkii ah ayuu soo tegay isagoo gidaarkii iyo darbigii intuu qabsaday fuulay isle aad u dhacdid qoftii aad ballansanaydeen aqalkeeda ayuu wuxuu maqlay aqalka ku qabsan daaradiisa bannaanka ah nin tukanaya oo salaatuleyl u taagan muxuu akhrinayaa ninka salaatuleylka u taagan meesha سورة الحديد آيات كجرتا أيو أخرنايا آيات دي مركو مقلي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل عليه من الحق آيات كاسو مقل قداركو ساوها يستوي لك مدعين بلى 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 معنى هذا محي مياني أدوان ذاتك مسلمين تي مؤمنين تي إيمان كله ميان لقارين وقتي قلبي قودو إلهي أخشوعي لها واستبق بان لهايين ووحي معاسية دنوب أي كتشيران فرها كلبحي لهايين لما قارين ميا وقتك ولا قاري إلهي يو وكسو النقض وماشو كتوبت كياني با مركو حوغا صوص عضي أيو وحو أركدد أور إيو وحو تاغان وضهد ليا شو ضدكو إساقي كهد ليا مكاسو وحو سريا يكو أركيني بل أفريسو وضهد ليا وحيلين ورن ندتشيا ور أورتا إنوفرا ورنينكي إنكارتا قبي إيه فضيد أها فماشان كتشيري مفوغا وروحبا إنك الرهيبي ما وانا دعيا وانا لينيا ورسعون ما إن ندتشيا يحوغا أن سعنو إيغا وضهد ليا ومغليا إساقي مركا وننكاسا لوغا بقاي موقت مركاسو إلمي محو نقضي مركي دنبي كتاب تفسير كتاب لشرحي أو حديث هذا ساؤك لفرتد
qaala fudayd ibnu ciyaad unbad arkaysa caabidu alxaramayn baa loo bixiyey xaramkaasu muddo dhan fadhiyey caalim noqday diinta ilaahay bartay caabid uu noqday marka aayaadka qur-aankeenna lagu akhrinayo macaahidda la dhiganayo jaamicaadka laga baxayo kutubta la dhegaysanayo muxaadaraadka la dhegaysanayo waa inay walaalayaal waxayna ka bedelaan waa in dhaqankeenna wax ka bedelaan waa inay ilaahay inoo sii dhoweeyaan waa inaynu allah u toobad keennaa waa inaynu alle u noqonnaa ilaahay markuu ku arko inaad addoon diyaar ah tahay oo isaga ku xidhan oo toobad keenaya oo cabsanaya oo baqanaya markuu ku arko ilaahay waa ku tabantaabinaya waa ku toosinaya waa ku hagaajinaya markaasaa nebigu heer wuxuu sheegay qofka mu'minka ah ee toosnaa ee cibaadada iyo khayrka ku toosnaa geeridiisu markay soo dhowaato malag baa ilaahay samada uga soo diraa malagaasi maxaa amar lagu siinayaa addoonkan waqtigiisii waa soo dhowaaday toosi marka haddii wax yar jireen xitaa isku dubarid baa la odhanaya isku dubarid saa markuu dhinto dadku maxay odhanayaan marka laga sheekaynayo ninkaas in dhoweydba sanawaadkan dambeba safal awal buu ku tukan jiray mid kale wuxuu leeyahay alla muxuu qur'aan akhrin jiray mid kale wuxuu leeyahay muxuu khayr ka shaqayn jiray muxuu sidan ahaa waa addoon la hagaajiyey oo laisku dubariday oo caynkan ah kii kale kharibnaana shaydaan baa lagu sallidaya isagoo waalan buu iska dhimanaya khariban oo bada kale iyo balaayo ku jiro dhimanaya marka waxaan u baahannahay inaynu ku noolaanno ku gebagabaynaya hadalkayga bayna alkhawfi waalrajaa noloshaada intaad caafimaad qabtid ee aad talinayso ee aad tabcanayso ee aad socoto ee xoog leedahay ee xanuunku haynin ee aad nooshahay waa inaad miisaan cabsi iyo raja ah dhexdooda waa inaad socotaa oo micnaheedu muxuu yahay adigoo ilaahay u tukanaya oo rajo ka qaba jannadiisa dembi dhaafkiisa maqfiradiisa adigoo soomaya adigoo sunnihii tukanaya adigoo sakadii bixinaya adigoo sadaqadii bixinaya adigoo wardinaya adigoo ducaysanaya adoo qaraabadii xiriirinaya adoo waalidkii u baarnimo samaynaya adoo wixii khayra ka shaqaynaya oo aad samaynaysa rajo ilaahay ka qabtay haddana cabsi waa inay kugu jirtaa oo maxay tahay cabsidu armaa ilaahay salaada kaa aqbali waaya armaa dembi kaa dhacay oo aadan ogaynoo alla agtii yaallaa jiraa armaa ilaahay ku cadaabaa armay khaatimadu kaa xumaataa armaa naar gashaa arma baqdintaasi waa inay kugu jirtaa taasi maxay keenaysaa inaadan isu bogin oo aadan isla bixin oo aadan isu qaadan dadka inaad ugu cibaado badan tahay dadka ugu fiican tahay dadka ugu deeqsisan tahay ha isu qaadanin isdhaliil waa lagaa fiican yahay waa lagaa cibaado badan yahay ilaahay waa lagaaga dhow yahay waa lagaa toosan yahay addoon caasiyaa tahay khaladkaagaa badan naftaada u sheega oo isdhaliil taasi waxay keenaysaa toosnaantaadu inay hagaagto shaydaankuna albaaba kaa waaye laakiin haddaad isu bogto oo haddaad xoogaa safka hore un ku tukato salaadaha xoogaa aas tiraahdo ninkaa cibaado badanba kumaba soo hoyda magaalada oo ninkaa fiican ma jiro maalintaas waa kuu dhammaatay maalintaas gurigaa ba'ay adigana marka waxaan isu dardaarmaynaa inaynu ku noolaanno cabsi aan baqayno iyo camal falasho xagna ka camal falo xagna ka cabso xagna naftaada dhaliil oo u sheeg inaad tahay qof dhaliilan oo khaldan oo gaabis ah oo dadka muslimiinta ee kale kulli ay kaa fiican yihiin waxay keenaysaa walaalkaa inaad ixtiraamto inaad jeclaato inaad xurmayso qiimo kula yeesho ilaahay ku xidhnaato taasay keenaysaa ilaahay caabudid bay keenaysaa ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidkeenna alla ha dhaafo dembiga muslimiinta oo dhan alla ha dhaafo waa dhimanaynaa khaatumada ilaahay khayr ha inugu gebagabeeyo intaynu joognana ilaahay isagaa wax ilaaliya hayna ilaaliyo diinta iyo camalka saalixa ah ilaahay hanaga ilaaliyo hanagu ilaaliyo ilaahay dad ay diintu dhab ka tahay oo qowlkooda iyo qalbigooda iswaafaqsan yahay allah haynaga dhigo dad diintooda duunyo ku raadiya ilaahayna kama dhigo dad diintooda janno iyo raalli ahaansho ilaahay ku raadiya allah haynaga dhigo muslimiinta wixii bukana allah ha caafiyo wixii daymaysan daynka allah ka bixiyo wixii kurbaysan kurbada allah ka faydo tii muraadle muraadkooda wacan allah ha siiyo intii dhimatayna allah ha u naxariisto intan noolna allah uga daba naxariisto maalinta taayadu noqoto ee qubuurta aan gelaynana
إلهي هينون نحريستو قبورتنا الله هينون نورو توحيدنا الله هينوغو ختمو إلهي وحن كبر يا الناس سبحانه وتعالى فتنك الدنيا ده مشاكلات كثيرة إلهي إنه نجا إلاليو إنه إلهي ورالي نجا الله إنه أفسده ضد ولا على مسلمين أو إيمان كي يهل لماذا قوة على الله ينقدقو حنون كقبيلة دي يقولون كالله ينقا سارو إيمان كقلبك إنه كثيرة الله قويه معاصدة إلهي النفط إنها كدورو دينتي يا خير كالله ينتشع ليسيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد